Waa qiso qoys yar ku dhacday kana kooban 5 qofood aabe, hooyo, ayeeyo, hooyo dhashay 2 caruur ah oo aanan xitaa weli gaarin 10 sano. Waxayna deganaayeen tuulo yar oo magaalada ka durugsan masaafo dhan 70 kiiloomitir. Maalin maalmaha kamid ah hooyadii caruurta dhashay ayaa aad u xanuunsatay, kadibna waxaa loola cararay isbitaal ku yaalay magaalada. Markii baaritaano badan lagu sameeyana waxaa la ogaaday in cudur aad u halis badan ay qabto, ayna u baahan tahay qalliin degdeg ah si nolosheeda loo badbaadiyo. Aabihii qoyska oo xaaskiisa wada ayaana dib ugu soo laabtay gurigiisii. Xaalkiisa ayaana iska ahaa mid dabaqada hoose ah maadaama uusan wax xoolaha gacanta ku haynin. Mushkiladna waxay ku noqotay oo aad uga cabsanaya xaaladda xaaskiisa iyo in caruurtiisa ay bilaa hooyo noqdaan maadaama uusan u hayn lacagta qalliinka. Maskaxdiisa waxa ku soo laablaabaneysay hadalkii dhakhtarka ee ahaa si xaaskaaga loo badbaadiyo waxa loo baahan yahay in qalliin degdeg ah lagu sameeyo. Aabihii wuxuu soo xasuustay saaxiibo uu lahaa kuna sugnaa magaalada, kadib wuxuu go'aansaday inuu dhankooda aado. Waa intaas oo wax ka soo helaya ama ay ka dabaraan qarashka qalliinka ku baxaya. Intuusan bixin ka hor wuxuu la dardaarmay labadiisii caruur isagoo ka dalbaday in hooyadooda ay ilaaliyaan, ayeeyana ay caawiyaan, xaabadan u soo guraan intuu ka soo laabanayo. Hooyadu waxay ahayd mid bukaanjiif isku bedeshay oo aanan sariirta ka kici karin maadaama ay jiradii ku sii badatay. Midaasna waxa ay keentay in dadkii deriska ahaa ay soo booqdaan. Dumarka deriska booqashadooda markii ay gutaana mid walba oo kamid ah sida caadada ay dhacdo ee dadka islaamka ka dhaxayso waxa ay tahay inay dhahaan Allaha caafimaad taama ha ku siiyo, Ilaahay caafimaad sareeca ha ku siiyo, Eebba ha ku caafiyo iyo erayo la mid oo Eebba ay ugu weydiinayaan in caafimaad sareeca uu siiyo. Caruurtii maalin walba hadalka dumarka deriska ay maqliyeen, waxayna maalintii dambe ayeeyadood weydiiyeen waa kuma Allah, xagee buu joogaa, dadka miyuu daweeyaa, haddii la baryana baryada ma yeelaa iyo su'aalo kale oo badan. Ayeeyadii oo aad ula yaabtay su'aalaha caruurta ayaa bilowday inay mid uga jawaabto, waxayna intaasi ku dartay in ducada awlaadda yaryar uu Ilaahay aqbalo. Habeenkii markii la gaaray, wiilkii iyo gabadhii iyagoo jiifa barxadda yar ee gurigooda cirkana fiirinaya ayuu wiilkii yiri Ilaahay hadda intuu joogaa ayay kula tahay. Gabadhiina waxay tiri ma ogi madaxu saaran yahay mise cirka ayuu jiraa. Su'aalo noocaas iyagoo isweydiinaya ayayna hurdadii la tagtay. Subaxii markii la gaaray ay wiilkii iyo gabadhii soo aadeen dukaan deriskooda ah, waxayna ka soo qaateen warqad iyo bashqad. Kadib warqadii ayay qoraal hoose ku qoreen. Qoraalku wuxuu u dhacay sida tan: Ilaahayow kaala dawee hooyadeen, way jiran tahay,